ميانا الدين لهين إسلام منه المياه حقين كو أكسرنا يا أصل الله وأصل كأنك الدين تواي دين كالمريه أنك وصخ واي قرن واي شرع ما وهو شرع الإسلام كقبل هي الدستور كان وقبل لما كيني كانوا ماشان ما أقولاني أنا ما شرع قال قدنا قال هذا شرع أنت كأن شعب قدنا وصخ واي قرن واي شرع ما شيطان واي من الكينا أنت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. suuragal maaha arrinkan waan ka seexan kari waayey soo markaa waxaa ila haboon wixii igala haboon inaan ka iraado hurdadu hadday kaa xumaato sabab baa jirta hurdada kaaga xumaanayso niyadayda ama qalbigayga wuxuu ileeyahay arrinkan ka hadal waan ka hadlayaa idinkuna waxaan rajaynayaa inaad wax un ka faa'iidi doontaan hurdada yar ee aan ka kacay aan bilowno oo aan ka hadalno wixii aan ka seexan kari waayey idinkuna dabcan waxaan rajaynayaa inaad ila qabtaan waxa aniga qalbigayga ka guuxayo kale in badan oo idinka mid ah qalbigooda inuu ka guuxayo ayaa xaqiiqa aan isweydaarsano markaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي واسد آدم فراي halka aad iga daawanaysaan waa Acid Fry Studio waxaan ka seexan kari waayay in badan baan isgedgediyay waan ka seexan kari waayay arrinka qorsheegtu waa 3 habeenimo aad bay u adag tahay inuu qofka saacadahan soo kaco laakiin waxbaa jira aniga soo kiciyay number 1 horta xilligii salaada soo dhow oo inta badan 5 ka jiray laakiin caawaan ka hormaray waxaan kacay 3 markii aan soo kacay waxyaabihii ugu horeeyay ee niyadeyda soo gala waxay ahayd godkii ugu weynaa oo diin xumo iyo gaalnimo ah oo ay dad madaxnimo sheeganayo ay Soomaaliland doonayaan oo ay tahay qowmuluudnimo iyo waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu marnaba raali ka noqonin kana hor imanaya diinta iyo waxyiga samaawiga ah ee Ilaahay ummadani uu ku galladaystay oo Soomaalidu ugu horeyso waa wax aad loola yaabo runtii ummad 100% in maanta la yiraahdo waxa loo dejinayaa xeerka galmada ama xeerka jinsiga taasoo ay ka dhigan tahay shariicada islaamka iyo islaamnimada aad haysataan iyo diintan aad dul wareegaysaan waxba macna kuma fadhida waxaan idin kula talinaynaa inaad qaadataan nidaamka iyo mabaadiida iyo xadaarada reer galbeedka si aad u heshaan nolol wanaagsan oo ah tan aad maanta ku nooshiin mid ka wanaagsan iyadoo loo soo marayo oo nalagu sasabayo in sharcigani uu yahay sharci adkeynaya in wadanka uusan ka dhicin wax kufsi ah kaasoo lagu qarinayo duminta iyo hadafka ugu weyn ee laga leeyahay diintan la doonayo in lagu dumiyo laakiin laga dhigayo sharci adkeynaya inuu kufsiga yaraado lagana dhigayo Soomaalidu dad kufsiga agtooda caadi ka yahay. My name is Awad Elman and I live and work in Mogadishu, Somalia, a country recently ranked as the 2nd worst place in the world to be a woman. And this is because Somali women face several forms of gender-based violence. Forced and early marriage, almost universal female genital mutilation, rape, and other forms of sexual violence. laakiin haddii sharcigan loo dejiyo uu yaraanayo kufsiga waa ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay kufsiga ama xeerka waxaan rabaa markii inaan baraarujiyo xeerkan gebi ahaantiisaba inuu yahay xeer diin la'aan oo aan diinta islaamka waxba shaqo aan ku lahayn qofkii keenay baarlamaankana aanu dhihi karno haddii uu muslim yahayba waa muslim fogaaday oo u baahan inuu diintiisa ku soo noqdo waayo xeerkani maaha xeer nagu cusub xeerkani wuxuu dumiyay dawladan oo madaxweynuhu ahaa Maxamed Siyaad Barre ayaa xeerkan sababsaday oo laga dhaxlay 30 sano oo burbur iyo baaba ah
waayo waxyaabihii ugu horeeyay culimadii Soomaaliyeed loo laayay waxay ahayd markii uu madaxweyne Siyaad Barre uu yiri in uu soo galay hayndaabka ka hor imanaya mabaadiida iyo diinta islaamka waabase maanta ay Soomaalidu diintu si fiican u barteen iyo gabar oo wax magarata oo lagu soo canqariyay dhaqan xumo iyo diin la'aan iyo qixi ay qaxday ayay waxay ka soo baratay haddana xeerkii ay ku barbaartay qaxitaankii ay qaxday kadib oo dhaqan gaalo iyo diin la'aan laakiin la yaab male waayo inagu dad islaam ah baynu nahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri lan yufliha qawmun walaw amrahum imra'a inagoo taa'ub ayaynu waxaynu u furnay madaxtinimada iyo siyaasadda inay dumarka soo galaan taasina maanta waxay sababsatay waad u jeedaan waayo diinta iyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo quraanka waxa uu ka digo maaha wax si dhayal waayo ilaahay ummadan isaga abuurtay isagaana yaqaana qof waliba waxa uu ku fiican yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala baa yaqaana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ana lahu al-khalq wal-amr aniga idin abuurtay amarkan ana iskale ummadan Soomaaliyeed islaamka ilaahay baa abuurtay way aaminsan inuu ilaahay abuurtay waysa aaminsan yihiin amarkiisa amar ahayn amarkiisa amar aan ahayn inaynu marnaba ku guuleysanaynin marka walaal gabaray maxaad waxaanoo dhibaato u maraysa adigoo maskiin ilaahay waxaan kugula dardaarmay inaad ilaahaga u toobad keentid ummadana aad ka fariisatid waayo xeerkan iyo waxaan aad la wareegaysid annaga ku dhaxnool in badan ku dhaxnoolayn wax uu faa'iido u leeyahay dadka ku dhaqmana annagu maanan arag marka walaal yaad qaldaysaa adoo masamadaad ka timid u fiirsada walaalayaal anuu gabadhan waxay ila eg tahay qolooyinkii la oran jiray missioniska ee mataqaanaa diimaha gaalada fidin jiray bay ila eg tahay waayo waxaa jiray waraysi ay bixinaysay maalin dhaweyd oo aan dhageystay waxay leedahay anigu waalidkayga waalid muslina baa ay dhalay marnaba ma dhahayso qof muslina baa nahay waxyaaba shakiga geliyay bay kamid tahay iyadoo waliba ka cudur daaranayso oo leh waxaan si qaldan baa loo sii fasiray ayaa haddana hadalkeeda waxaad ka dhadhansanaysaa oo ay leedahay anigu waalid muslina baa ay dhalay oo wadankan wax badan u qabtay marka waa ligu xadgudbayaa bay leedahay anaa muslina marna ma dhahayso أنا والد كان ما هيسان والد كان دد وناكسن بيهن دد مسلمين بيهن وياشا هويدا أبها طبعا دد وناكسن بيهن دد مسلمين بيهن دد صوماليا بيهن لكن أنا إياك ما هيسان عادي كان كو هيسانا قفك أن كل جنة هي ولا لنا هي ورواد قلدان تهي ماشي سكجر دقاق وعادي كا هويدا أبها ما هيسان هويدا ولا يقنا وحوين بقبطي لكن أذوق واي محد ولا هاي أنا ضد مسلمين بايد لما ترى أنا قف مسلمين بانا هاي قطب ككلام ربوا حويان أذوق ياد وزير طاي ما أمريكاني يا نرويجاني يا سويدش يا تلياني يا فرنسيس بد وزير طاي مس أمة صومالية ده بقول كي بقول إسلام هاد وزير طاي أنت بات كلا جران لا هاي ده بات أنت كلا جران ويدي ولا لي محد نجا صوت دون طاي كل نقمشي أد كتمي ترى ده وجوه بونه حسين إنواتا kuwa kugu dhaqanka iyo mabaadi'da adiga aad wadatid watana wallahi inaan wadankan waxba uga suura gelin way ku daalayaan waxay leeyihiin in qodobkan anu uu fara badan yahay wax yarun baa nalooga akhriyay laakiin markaan hadda si indheeyay waxaan helay in dhowr shay oo qodobkani diinta islaamka uusan sinaba raad ugu lahayn oo si cad uga soo horjeedo waxaa kamid ah number 1 qofka 18 sano da'diisu ay ka yar tahay sharcigani wuxuu u yaqaanaa caruur taasoo shariicada islaamka si cad uga soo horjeedo oo macnaheedu tahay islaamku 15 jir 9 jir 10 jir 15 jir waa lagu guursan karaa gabadha wiilna waa lagu guursan karaa waa haday qaan gaaraan gabadhan haday caado hesho waa la guursan karaa way dhalaan 18 jir caruur 5 bay haystaanba wuxuu xadgudub ku yahay bay yiraahdeen culimada ka hadashay qodobka dhahayo 18 jir wixii ka yar lama guursan karo wuxuu duraya nabi maxamed calayhi salaam ayaa Aisha ku guursaday 9 jir nabigii buu duraya ka waa qodobka koowaad walaal waa diin xumatii ugu darnay qodobka labaad
sharcigan qaawanida iyo cawrada wuxuu u yaqaanaa keliya baa la leeyahay xubinta taranka hadday dumar tahay hadday rag tahayba gabadhu hadday doonto way isqaawin kartaa iyadaa xura way qaawanaan kartaa sida wadamada gaalada ka jirta oo kale ya ciddii joogtaa taqaan gabar waa inay qaawanaataa cawradii oo dhanba meesha waa laga saaray iyo diinta islaamka xad ay u yeeshay cawrada ilaah baan idinku dhaariyay waxaan ma sharci ba ka saddexaad sharcigani wuxuu meesha ka saarayaa weligii ama walaayadii mataqaanaa qoysku lahaan jiray ayuu meesha ka saaraya oo waxaa la leeyahay gabadhu 18 sano hadday ka yar tahay gebi ahaanba lamaba guurin karaba haddii la guri waaba dembiba waa la xiraya waalidkeeda looma guurin karo cidina looma guurin karo wiilkana looma guurin karo gabar isagana sidoo kale hadday 18 sano ka yar tahay taasoo micnaheedu ay noqonayso marka qofkii 18 sano ka yar salaadna laguma laha soonna laguma laha zakana laguma laha xajna maba tegi karaba de qof 18 sano ka yar yahay waryaarahe waxyaabo fara badan bay culimadu sheegaan laakiin waxyaabo aan ka seexan waayay oo aan in badan la wareeray intaaba ugu muhiimsan walaalayaal in ummadda Soomaaliyeed waa dad islaam ah waan ogahay 100% inaan dad islaam nahay walow ay jiraan gabarna maalin dhaweyd waan arkayay leh in sharciga hal laga saaro qof aan islaam ahayn ma qaban karo xil dawladdu kama qaban karo war wadankan inaan islaam ahayn xil kama qaban karo mana ka qabanayo haddaad doonaysaan meel aad idinku gaalaha xilal ka qabataan wadamada gaaladu way fara badan yihiin maxaad anaga noo qasbaysaan dad islaamana 100% islaam baynu nahay waxay u qildaysay gabadhaas in ay tiraado Soomaali gaala ah baa jirta ay dhaga dhaadhiciso walaa maalin kadibna ka soo noqonayo dhahay waan qaldamay islaamka ku soo boqolaal baa dhacda kuwaas waxaad nooga dhigaysaa markii ay Soomaali gaala ah jirto walow ay ka toobad keentay Ilaahay tawfiiqda waafajiyay oo ay la garaynay bixisay laakiin gabadhan walaal wasiir deeqo walaal nadaaf oo halkii aad ka timid u noqo nadaaf aad iyo aad baad umahadsantiin walaalayaal waan ka xumahay haddaan hadalka idinku badiyey in khayrul kalaami ma qalla wa dalla peace